السلام عليكم أخواتي كسر دواء مركلة صوم في الجنة ما أنتوا حاربا أنا إدين لو ذا قصيدة لو ديسو Garbaha dhisana maanta waxaan sameyn rabnaa exercise badan sida ogtiin garabka saddex meel oo kala yahay waxaa jiro side shoulder yani gees ah waxaa jiro front oo qaybtan ay rear delt oo gadaal ah intaba waa sameyn doonaa haddii ay tahay marka kuugu horeysay channelka nagu soo biir subscribe saar gambaleelkana daaro si aad u heshid video walba aan soo gelino waad mahadsan tahay marka exercise ugu horeeya waxaan ku bilaabeynaa standing military press ama loo yaqaano standing shoulder press waxaan ka sameynaynaa afar wareeg marka shoulder presska waxaa weeye exercise waa compound exercise yani muruqa saddexdiisa nooc buu saameynaya hore u saameynaya gees iyo gadaal inta buu saameynaya marka asagaan ku bilaabeena xogaa culays aan qaadayna marka waxaan rabnaa inaan u dhaxeyno 6 ilaa 8 rep range-gaas ma ka badinayno culays aan ku bilaabeena kadib isolationka side raiseska iyo rear delt raise waxaasaan gadaal ka geli doonaa okay aan bilaabo exercise ugu horeeya Set number 2. Okay, exercise keena labaad waxaan sameynaynaa seated dumbbell shoulder press ama dumbbell shoulder press oo fadhi ayaan sameynaynaa isagana waxaan ka sameynaynaa afar wareeg oo 8 to 10 8 ilaa 10 aan ka sameynaynaa all right okay waxaan gelayaa exercise-kii saddexaad waxaan sameynaynaa exercise-ka saddexaad dumbbell shoulder raise iyo cable shoulder raise oo superset ah ayaan sameynaynaa marka waxaan ku bilaabayaa dumbbell shoulder raiseska waxaan ka sameynaynaa 12 to 15 reps marka dumbbell shoulder raiseska markaad sameynaysid mar walba yani kor iyo hoos ha ka fikirin gees inaad geynaysid dumbbellka ka fikir
Okay, waxaan la superset gareynaynaa cable shoulder raise. Same thing. Okay, markaan waxaan sameynaynaa waxaan sameynay so far midka ugu horeeya oo ka bilownay oo military press ahaa oo horay iyo kuwa kalena xoogaa saameynayay side raise oo waxaan sameynay dumbbell iyo cable ah. Markaan waxaan sameynaynaa rear delt. Garabka saad ogtiin wuxuu leeyahay qayb dambe meesha saa u jeedin hadii aad arki kartiin muruqas oo garabka dambe waxaa la dhahaa rear delt ama garabka dambe. Inta badan dadka xooga ma saaraan rear deltiga laakiin muhiim waa garabka yani inuu mid wareegsan noqdo kale. Haddii aad geeskii hore bis ka dhistid gadaal eber noqoto oo muruqas dambe uusan lahayn xoogaa garabka ma qurux badnaanayo. Markaan waxaan sameynayaa marka superset ama hal mar waxaan isla sameynayaa dumbbell rear delt raises iyo cable crossovers aan isla sameynayaa. Adiga 12 to 15 reps waayo muruqa wuu yar yahay culays badan ma qaadi karo marka high reps in lagu sameeyo. markii aad sameynaysid rear delt raise mar walba garbahaaga hore u bixi meeshana ku dhagnaadaan iyo soo kicin markaas dhabar ay noqonaysaa hadday soo kacaan. Cable crossovers. exercise-keena ugu dambeeyay shoulder ayaan sameynaynaa. Waxaan sameynayaa cable front raise oo aan ugu talagalnay muruqa hore ee shoulderka qaybtaas. Waxaan soo sameynay gees gadaal. Markaan waxaan sameynaynaa kan hore waxaan ka sameynaynaa asagana 4 wareeg oo 10 ilaa 12 ah.